السلام عليكم halkee ayuu ka yimid astaanta US dollar ama calaamada dollarka waxaad u malayn kartaa in lacagta dollarka Mareykanka ah ee calaamadan ee USA ay u taagan tahay soo koobitaanka US magaca wadanka balse xaqiiqadu waxa ay tahay in uusan xiriir xitaa jirin ee u dhaxeeya nambarka iyo waliba lacagta iyo waliba soo koobitaanka magaca wadanka halkee ayuu ka yimid calaamadan lacagta ee US haddii aad eegto lacagaha adduunka ee kala duwan badankood waxa ay iswaafajinayaan xarafka ugu horeeya ee isla ereyga oo ku qoran Ingiriisi iyo waliba astaanta lagu tilmaamo inay tahay lacagta marka laga reebo dollarka Mareykanka ereygan dollar ee Ingiriisiga ah gabi ahaanba waa ka madan yahay waxa la yiraahdo S waxaa jira xisaabaadyo badan oo arintani ku saabsan balse kuwa ugu dhow ee buugagtan ku xusan ayaa ah fasiraada xafiiska Mareykanka ee xidhiidhka iyo waliba daawacaada lacagaha oo asal ahaan ka soo jeeda Isbaanishka beso oo ah lacag caan ka ah gumeysigii Mareykanka qarnigii 18aad qoraalada gacmeedyo fara badan oo gacmeed lagu qoray ayaa soo baxay iyagoo tilmaamaya in ereyga beso uu yahay soo koobitaanka Isbaanishka ee beso de ocho reales oo ay ka soo koobeen oo kaliya labadani xarfood ee PS adeegsiga astaantan macaamilka ganacsiyasha ayaa loogu talagalay waxaana loogu qoray si waraaqadaha S loogu dul rido waraaqadaha B muddo kadib waraaqadaha B laga tirtiri calaamada oo magdhow ayaa laga helay halka xariijinta loo qaybiyay xarafka S ayaana lagu bedelay calaamadii B calaamadan ayaa markii ugu horeysay la adeegsaday kadib xayeysiintii 1800 soo baxday ee noocan ugu horeysay ee lacagta dollarka sanadku markuu ahaa 1875 haddaba calaamadan inta badan Mareykanka ku celceliyay in ay tahay astaanta u taagan dalkiisa USA ayaa waxa xaqiiqada dhabta ku noqonaysa in ay ka soo jeedo Spain daawade haddii aad wax badan oo xaqiiqa ka ogtahay waa idinla wadaagi kartaa intaan waa in aan ka soo ogaanay faraguudkood oo qura balse ma hubno in ay tahay xaqiiq dhab ah oo ay calaamadan esta ay ka soo qaateen isla markaana calaamadan dollarka ee SCA ee loo qeybiyay calaamada dheer ku sawirantahay loo yaqaan calaamada dollarka in ay tahay astaanta saxda ah ee turjumaysa calaamada dollarka ee dalka Mareykanka barnaamijyadan iyo barnaamijyo kale ayaa jiri doona taasi oo aan ku korgafeyn doono calaamadan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh